رئيس الوزراء waddanka Itoobiya oo khudbad ka horjeediyay baarlamaanka waddankiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo door kuwaas oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee gudaha, dibadda iyo sidoo kale damaca Itoobiya ee maranbiyoodka badda cas meel ay ka gaadho. waxaana uu si faahfaahsan sidoo kale uga hadlay colaadda gacanka hadalka u dhow ee dalkiisa kala dhaxaysa waddanka jaarka ay yihiin Eritrea. warbixinteena ayaynu ku eegi doonaa sidoo kale waxa inoo raaci doonta wafdigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku tagay waddanka isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo ay maanta ka furmeen shirka dawladaha dunida. maxaa uu qabsamay madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisa sidoo kale goorma ay halkaasi ka jeedin doonaan khudbadooda. warbixinteenan ayaynu ku eegi doonaa u diyaar garooba iyadii oo faahfaahsan. aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu hortagay xildhibaanada baarlamaanka waddankiisa kuwaasi oo weydiiyay su'aalo badan oo dhinacyo badan taabanaya waxaana ugu xiiso badnaa isla markaana si weyn wax looga weydiiyay colaadda kala dhaxaysa dalkiisa jaarka ee Eritrea oo sanadkii ugu dambeeyay xiisadooda colaadeed ay gaadhay in qoriga afkiisa ay xabadu ka baxdo. daba ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sheegay in xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Addis Ababa iyo Asmara ay meesha ka baxday kadib markii uu bilowday dagaalkii gobolka Tigray ee u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulkii gobolkaasi ee weerarka ku qaaday ciidamadii dawladda horaantii sanadkii 2020. Abiy Ahmed oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri dadka qaar ayaa ku doodaya una malaynaya isla markaana falanqeynaya in dhibaatada u dhaxaysa dawladaha Itoobiya iyo Eritrea ay ka dhalatay markii dawladda Itoobiya ay soo qaaday arrinka badda cas. taasi sax ma aha ee waxa ay bilaabantay bilowgii dagaalka Tigrayga. Abiy hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in dhibaatada ugu badan ay ka dhalatay falal kala duwan oo ay ku kaceen ciidamada dawladda Eritrea kuwaas oo ku eedeeyay inay dhibaato ku hayeen shacabka gobolka Tigrayga ee dushooda oo dagaalku ka dhacayay. wuxuuna tilmaamay in dhibaatadu ay ka dhacday kadib markii ciidamada federaalku ay qabsadeen magaalada Shire marxaladii hore ee dagaalka markaasi oo tilmaamay in ciidamada dawladdu halkaasi ka sifeeyeen kuwii Tigrayga isagoo intaasi ku daray in ciidamada waddanka Eritrea oo kadib soo galay magaaladaasi ay dhibaato ba'an u geysteen oo burburina guryihii dadka rayidka ah. waxa uu sidoo kale sheegay halkaasi in uu ka bilowday isqabqabsigii ugu horeeyay ee ka dhasha xiisadda diblomaasiyadeed ee wadamada Itoobiya iyo Eritrea. ra'iisul wasaaruhu wuxuu intaasi ku daray in xaaladdu ay sii xumaatay kadib markii uu dagaalku gaadhay magaalada taariikhiga ee ku taala bartamaha gobolka Tigrayga markaasi oo tilmaamay inay u gudbeen ciidamadiisu dhinaca magaalada Aksum isla markaana ay xiisadu ka sii dartay kadib markii ciidamada Eritrea halkaasi ay ku dileen tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi loogu yimiday. isagoo intaasi ku daray in adwa ciidamada Eritrea ay ka bilaabeen inay furfurtaan ama ay bilqaystaan warshadihii halkaasi ku yeelay halka magaalada Tigrad uu ku eedeeyay ciidamada Eritrea inay ka goosteen wax kasta oo ay qaadi karayeen kana mid ah qalabkii warshadaha dawooyinka burburiyeenna wixii ka soo haray warshadahaasi. talaabadaasi ayuu ku tilmaamay in ay ahayd tii keentay in khilaafku mar kale uu gaadho halkii ugu xumayd ee ay kala gaadhaan Addis Ababa iyo Asmara. ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu khudbadiisa uu kaga hor hadlayay baarlamaanka u sheegay in dawladda federaalku waqtigaasi ay ka gaabsatay inay si toos ah uga hadasho waddanka Eritrea sababo la xiriira culays ciidan oo waddankiisa jiray. waxaanu yiri dawladda Itoobiya awood uma lahayn inay ka dagaalanto dhowr jiho hal mar isagoo oo xuseyn ciidamadu ay ku mashquulsanaayeen dabagalka jabhadda xoreynta shacabka Tigrayga ee TPLF isla markaana ay sugayeen dhulkii ay hore uga qabsadeen. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu dhanka kale sheegay inuu marar badan isku dayay inuu joojiyo xadgudubyada isagoo adeegsanaya wadooyin nabadeed oo uu u diray waddanka Eritrea gaar ahaan madaxweynaha waddankaasi markii magaalada Aksum uu tilmaamay in lagu dilay dhalinyaro badan oo ay beegsadeen ciidamada waddanka Eritrea. Abiy Ahmed oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda in ka badan hal mar ayaan u diray isaga oo xambaarsan fariin cad oo ku saabsan in aan la argagixin dadka shacabka ee Tigrayga hana bilaqaysanina hantidooda. ayaan ku iri dagaalku TPLF ayuu naga dhaxeeyaa ee laakiin shacabka Tigrayga nagama dhaxeeyo ayuu sheegay Abiy Ahmed inuu u faray wasiirkiisa arrimaha dibadda madaxweynaha waddanka Eritrea Asiya Afwerki. ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markii ay fashilmeen doodahaasi in markii ugu dambeysay oo u diray madaxweynaha waddanka Eritrea ku-xigeenkiisii isagoo oo sheegay in labada mas'uul ee hadda aanay xilka hayn balse ay nool yihiin isla markaana ay baarlamaanka waddankiisa weydiin karaan. inta goor ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sheegay in uu u diray waddanka Eritrea si ay u joojiyaan ciidamada Eritrea gabadfalada ay kula kacayeen sida uu sheegay shacabkii gobolka Tigrayga. geesta kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu markale ku celiyay in dalkiisa si sharci darro ah laga qaaday dekedda Casab ee dalka Eritrea xilliga ay kala guranayeen labada dal. waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay in aanay jirin wax dukumentiya oo ay dawladdiisu aragtay kuma saabsan in dalkiisa uu waayo marinbiyoodka badda cas ee uu xaq u lahaa isagoo intaasi ku daray in aanay sidoo kale jirin ogolaansho ka yimiday baarlamaanka shacabka ee xilligaasi ama golihii wasiirada kaasi oo ay ku ansixiyeen in ay dawladda Itoobiya noqoto mid bilaabada isla markaana la raaciyo dekedda Casab dhanka Eritrea.
ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ku adkaystay in su'aasha badda cas aanay ahayn mid cusub ama kicin dadweyne isagoo shaaca ka qaaday inuu si toos ah arrintaasi ugala hadlay madaxweynaha waddanka Eritrea kadib bilowgii heshiiskii wada hadal ee 2018 ay wada galeen Asmara iyo Addis Ababa. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in Itoobiya ay qaaday tallaabooyin la taaban karo si ay u hirgeliso helitaanka dekedda badda cas ku taala ee Casab kadib heshiiskii nabadda, isagoo intaasi ku daray inuu dayactiray wadooyin dhowra isla markaana ay dawladdiisu bixisay kharashka korontada, sidoo kalena ay isku dayday inay dalka keento Eritrea weeyaan weyshash iyo matooro lagu caawinayo dekedda Casab si ay u wada isticmaalaan labada wadan. Arrintaasi ayuu ku tilmaamay in guud ahaanba ay dhanka Eritrea diiday. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo u muuqday intii uu ka hadlayay golaha baarlamaanka waddankiisa hortiisa mid xiisad gaara iyo culays ku haysa khilaafka soodimeed ee kala dhexeeya waddankiisa Eritrea ay si gaara ugu mudan tahay. Waxa uu sidoo kale hoos u dhaca xiriirka oo ku tilmaamay in horumaradii ka dambeeyay heshiiskii Pretoria ay dawladda Eritrea ku adkaysatay in nabad waarta oo ka dhalata dalkiisa iyo sidoo kale xuduudka labada wadan u dhaxeeya ay ku xiran tahay in meesha laga saaro jiritaanka kooxda TPLF iyo gobolka Tigrayga. Arrintaasi oo Abiy Ahmed sheegay inaanay ahayn shuruudo suurtagal ka ah dalkiisa maadaama TPLF iyo shacabka gobolka Tigray ay yihiin dad Itoobiyaana. xiriirka u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Eritrea ee hadda maraya halkii ugu hooseeyay lagana baqayo in uu markala dagaal ka dhaxqarxo labada dawladood ayaa waxa dib loo soo nooleeyay heshiiskii isu soo dhawaanshaha ee 2018 lagu soo afjaray colaado socday 20 sano ku dhawaad isla markaana sababay dhimashada kumanaan kun oo qof. dhanka kale bishii Oktoobar 2023 khudbad telefishinka laga sii daayay oo uu baarlamaanka ka horjeediyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu waxa markii u horeysay si fagaara ah meel uga sheegay in arrinta badda cas iyo helitaankeega deked ay ka helaan waddanka Eritrea in ay tahay lagama maarmaan isla markaana ay dood ka qabaan in dekedda badda cas ku taala ee Casab ay qayb ka tahay dhulka waddanka Eritrea isla markaana si faqaldan ay u waayeen xilligii ay kala guranayeen labada dal. waxaana warbixinta ra'iisul wasaaraha ay maanta ay ku soo beegmaysaa xilli shaaca hore looga qaaday in gobolka Tigray iyo dalka Eritrea xiisadoodu meel halis marayso, sidoo kalena ciidamada Eritrea hore loogu eedeeyay in gabood fallo ka dhana bini'aadantinimada ay ka geysteen gobolka Tigray labadii sano ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea. dhinaca iyo haddii aan eegno shirkii ka socday waddanka isutaga Imaaraadka Carabta iyo safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagayna waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Dubai shirka dawladaha dunida ee loo yaqaano World Government Summit kaasi oo sanad kasta bisha labaad ama saddexaad lagu qabto magaalada Dubai ee waddankaasi, halkaasi oo uu shalay u duulay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo la filayo in inta halkaasi uu joogo uu ka helo jaalansi siyaasadeed uu kaga faa'iideysto in mar kale uu dalkiisu helo aqoonsi ku saabsan in ay qayb ka noqdaan dalalka beesha caalamka la aqoonsan yahay maadaama hore aynu ognahay in waddanka Israa'iil uu noqday waddankii ugu horeeyay ee dabayaaqadii bishii Disembar ee sanadkii ka soo gudubnay ku dhawaaqay aqoonsiga iyo jiritaanka madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliland. waxaana aqoonsigaasi uu keenay in dalal badan oo caalamka ku yaala ay u soo jeestaan muhiimadda dhulkani istiraatiijiga ee Soomaaliland halka uu ka dhaco geeska Afrika iyo qaaradda Afrikaba. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sanadkii labaad oo xiriir uu ka qayb galay shirka caalamiga ee kulanka dawladaha adduunka World Government Summit oo ka qabsamay magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. shirkan ayaa lagu sheegay inuu ka mid yahay kulamada caalamiga ee ugu muhiimsan dunida, waxaana badanaa diiradda lagu saaraa hogaaminta casriga, maamul wanaagga, horumarinta dawladnimada iyo aragtida mustaqbalka caalamka. shirka World Government Summit ayaa sanadkan waxa ka soo qayb galay kumanaan qof oo isugu jira madax dawladeed, hogaamiyayaal caalami ah, ra'iisul wasaareyaal, wasiirro, khubaro caalami ah iyo ganacsato waaweyn iyo wakiilo ka socda hay'adaha waaweyn ee caalamiga ah. kasoo qaybgalka ballaaran ee heerkani ah ayaa waxa uu muujinayaa miisaanka iyo saamaynta uu shirku ku leeyahay jihaynta siyaasadda iyo horumarinta caalamiga ah xilligan ee dunida. ka qaybgalka madaxweynaha Soomaaliland ee shirka oo sanadkii labaad oo xiriir uu ka qaybgalaya ayaa waxa uu si cad u muujinayaa una tusaya caalamka doorka sii kordhaya ee xukuumadda Soomaaliland iyo dalkani uu ku leeyahay faqarayaasha caalamiga. madaxweynaha Soomaaliland ayaa inta uu shirku socdo waxa uu fursad u heli doonaa sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada inuu kulamo midho dhal la yeesho hogaamiyayaal iyo mas'uuliyiin caalamiga isagoo faahfaahin ka bixin doona horumarka iyo xasiloonida hiiska mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale ka qaybgalka shirka caalamiga ah waxa uu Soomaaliland u leeyahay faa'iido diblomaasiyadeed oo weyn maadaama Soomaaliland ay codkeeda, aragtideeda iyo waayo-aragnimada dawladnimo ka dhiibanayso madal caalami ah taasi oo xoojinaysa xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga caalamiga. shirka World Government Summit waxa si gaar ah diiradda loogu saaraa hal abuurnimada dawladnimada, adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah,
isbeddelka caalamiga ah iyo xoojinta wada shaqaynta dalalka dunida taasi oo jamhuuriyadda Soomaaliland u noqotay madal muhiim ah oo ay ku muujiso aragtideeda danaha qarankeeda iyo doorkeeda gobolka iyo ka caalamiga ah jamhuuriyadda Soomaaliland oo sanadkii labaad xeelay ka qayb galaysa shirka caalamiga ah ee dawladaha dunida ayaa waxa uu astaan cad u yahay dadaalada joogtada ah ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee Soomaaliland ugu jirto xoojinta xiriirka dawladnimaadeed kor u qaadista magaca iyo sumcadda caalamiga ah iyo halganka uu qarankani jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jiro xoojinta aqoonsi buuxa oo caalami ah iyadoo ay Soomaaliland si kalsooni leh iyo ku dhacba leh ugu muuqanayso masraxiyada caalamka falanqeeyaal kala duwan oo ka hadlay arrinta shirka Soomaaliland iyo qaybgalka shirka dawladaha dunida ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliland ay maanta mar kale heshay mid ka mid ah jaanisiyada lagula kulmo madaxda caalamka iyo sidoo kale dadka saamaynta kula dunida kuwaasi oo iyagu si weyn uga shaqeeya ama badanaya dalalka soo koraya ee isku wada amaba isku maamula Soomaaliland iyadoo raadinaysa itraaf rasmi oo ay ka heshay beesha caalamka isla markaana dhawaan Israa'iil ay markii ugu horeysay shaaca ka qaadanaya aqoonsatay ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisana ay ku dadaalayaan in muddada halkaasi ay joogaan ay kula kulmaan madaxda ugu sareysa caalamka ee halkaasi ka soo qayb galay waxaana sidoo kale Soomaaliland ay taageero ka helaysaa ku saabsan la kulanka madaxda caalamka dalalka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo iyagu ah saaxiibada ugu dhow ee Soomaaliland xilligan caalamka kuwaasi oo ka shaqeynaya inay Soomaaliland noqoto dal ka mid ah dalalka caalamka ee la aqoonsan yahay maadaama ay ku taalo goob istiraatiiji ah oo xilligan ah meelaha ay sida weyn u doonayaan dalalka quwadaha adduunka